السلام يا ورباهين تقرنك جمهورية سومالان انت كهول قشة وهذا تيفي تهاي هذا جراي تهاي يهدي أي محوها سوشيال ميديا هذا كشغية بتهاي قرص دي لا تجسد وإنه ما أنت أي حاجة إنه هجامنا وحنو مننا هجامك وأنا جاول حرف إننا مسافر وإننا جود السنة هاي إنه نوضع إلى على إنه نكوض شيئنا اللي نوضع هي هاي طار السوق والخطة تسينا ومحماض ويكون هاد سيه هدي عاي دريمان يغلفتون إن كلا ذات كدعات وانا تانو كهشيني مانتا انت يغا اول ما هي إن الله انتي في كشغيني سي سوماليلان انو مانتا كلا ساحنا إن لا دوره انت حيرك صحافة soo baxayo qodobada iyaga ah oo qodobo isfahma oo wada saaxnay waxaan ka codsanayaa inaad taa ku dhaqantaan ilaalisaan aynu wada dhowro waxaan loo soo halgamay ee loo soo dhintay ee loo soo dhibaatooday inaynu wada ilaalina waajibnay saaray sidaas ay noo balana saasaynu heshiis ku nahay saasaanu idin kula shaqeynaynaa idinku joogsamayno idin gurmayno waanu idin kobcinaynaa labadii TV ee muxuu ahaa aanu saaray banka ee xakiinayna waa fasaxan yihiin waa inta aanu gaarsiinayna qoraalka iyaga hay'adaha ay aanu gacanta u gelinay anaga gacanta u gelinay inta aanu oo kulli way iska dhamaanay ilaa garabta hadda warqadii saxiix hadii la yiraahdo hal maqlo way fasaxan yihiin TV-yadaasi waanu sii daynay kadib markaanu heshiis buuraa gaadhnay eenu ka gaadhnay waxa hore dhacay iyo waxa dambe dhici doonaba ka warbaahinta aad warka ka sheegaysaan arrinta Soomaaliland wax ka sheegaysaan waxa la yiraahdaa oo dastuurka inoogu xusan oo ogsoontii in la yiraahdo jamhuuriyadda Soomaaliland Puntland magacyadaasi ma sinmayana waxa la yiraahdaa jamhuuriyadda Soomaaliland taas aan oskareenaysa broadcasterskiinu aan oskareenaya halkaan inoogu xusan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على من لا نبي بعده runtii waxaan aad ugu faraxsanahay kulanka maanta halkan ka dhacay ee uu qabtay wasiirka warfaafinta oo dhammaanba warbaahinta Soomaaliland qaranka Soomaaliland halkan isugu timi iyadoo ujeedadeedu ay tahay in wax la iskaga ogaado lana fasaxo labadii TV ee ayaamahan xayiraadu saaray laguna kala qaato waajibaad dastuuri ah oo lagu wada dhaqmo sidaynu ognahay saxaafaddu waxay ka mid tahay halbowlaha Soomaaliland ee horumarka dalka ka shaqeeya waxay kala noqon kartaa waxyeelada ugu weyn ee qaranka waxyeeli kara sidaa maanta ku ballanteen idinka iyo wasiirku waxaan rajaynayaa inay sidaa hadii Ilaahay ka dhigoto ay noqotaan kuwii dalkan iyo qarankan wax u tarayay ee kuwii waxyeelayay aydan noqonin waxaan kaloo ku faraxsanahay sida waafiga ah ay uga hadleen labadii mas'uul una ballan qaadeen inay qaranka wixii ku xun ilaalin doonaan sidoo kale dastuurku wuxuu ilaalinayaa oo shuruucda aynu samaysanay ee dastuurkeenu ay ogtihiin 97% inaynu u codaynay uu ilaalinayaa xuquuqda muwaadinka kala duwan oo ay ka mid yihiin sidaa dareedeed xukuumaddu waxay diyaar u tahay inay idinku dhaqdo xeerka iyo xuquuqda uu qof waliba leeyahay waxaynu kala dhamaystiraynaa oo dadejinaynaa ogolayaasha xeer dejinta iyo annagoo ah wasaaradii dastuurka iska kaashanaynaa sidii xeerarka loo baahan yahay ee uu ka yahay aynu u dadejin lahayn oo aynu dhamaystiri lahayn intaa ka horeysana sideedaba mas'uuliyadda Ilaahayna ina saaray sharcigeennuna ina saaray iyo dawladnimadeenu waxa weeye inaynu danta ka wada shaqeyno taasoo maantana ballan qaadeen waxna kaga heshiiseen anana aanu goobjoog idinku nahay Somaliland Soldier ururka telefishinada Somaliland hadii bidal kale madaxda kala duwan ee dawladda qaar kamid ah oo ay kamid yihiin wasiirada gaadiidka iyo arrimaha gudaha waxa dabcan aanu mahadnaqayaa wasiirka warfaafinta iyo wacyigelinta dhaqanka Jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Muuse Diiriye oo halkan garabkayga taagan oo raantii aqbalay ergadii iyo odaynimadii loola tagay inta marka laga yimaado waxaan jecelahay in iyadana fursadan uga faa'iideysto
dadka reer Somaliland iyo daawadayaasha Horyaal TV meelay joogaanba laga yaabo inay khaladaad naga dhacay dhibsadeen bini'aadmi baan nahay bashar baan nahay khalad naga dhici karaa cidii dhibsatay ee wax ka tabatay ee ama na dhaliishay ee u aragtay inaanu gaf galay bashar baan nahay oo khaldami karaa raali gelin baan ka bixinaynaa arrinta iyadana hadalkayga intaas aan ku soo koobayaa waxaan u yeedhayaa oo isaguna hadli doona kelmad oran doona walaalkay aadan Aydiid gudoomiyaha Horyaal TV bahda saxaafadda Somaliland ee halkan isugu timi oo salaamayna waxaan doonayaa inaan laba kelmadood oo qura halkan ka iraaho marka hore ilaahay baa mahadle maanta kalifay in aanu dib ugu soo noqono ama nalaga qaado xayiraadii telefishinada haysatay waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa ururka telefishinada madaxa bannaan ee Somaliland ee siba oo arrintan si weyn isugu xilqaamay sidii ay afgarad nooga dhalin lahaayeen annaga iyo wasaaradda warfaafinta wax kala tirsanay waxaan kaloo halkan ugu mahad celinayaa wasiirka wasaaradda warfaafinta oo imika dhinacayga taagan oo isaguna ergeedii aqbalay in aan arrintii lagu dhameeyo si suxliya iyo is-afgarad waxaan kaloo halkan ku kala saxeexnay wasaaradda warfaafinta inaanu si u wada shaqeyno cadaalada iyo sinaana iyo qarankana aan wada ilaalino haddaba waxa la sooranayaa talow maxay ku dhamaatay arrintaasi arrinta anaga iyo wasaaraddu gacmaha haysanaa waxaan kaloo halkan u mahad celinayaa cid kasta ama ururka suxufiyiinta Somaliland ha noqotay Solja ama ha noqotay wasaaradda qaybaheeda kale ama wasiirada kale ee arrintan nagala shaqeeyay sida wasiirka golayaasha isaguna halkan nala jooga aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan doonayaa inaan halkan sidii walaalkay Sayid sheegay aan ka bixino wax kasta oo naga dhacay ama wasaaradda warfaafinta nagu haysatay ama qaranka dadka kaleba nagu haysteen oo telefishinadeeda ka dhacay inaanu raaligelin ka bixino aanu iska ilaalin doono insha Allah wasaaradda warfaafintana waxaan leenahay sharciga ayaanu raacaynaa idinkuna sharciga ha ka talaabsanine sharciga nala raaca